وشكلي حساب بدنايات ودسوق سين قلبيتي اسمه iyo jaceylkii axdiga adka وقبل لواد وقتي wuxuu isguraba saacadu wixii soo dul istaagtay waqtigii la deyn lahaa ardayda oo saacadaha soo socda ruux waliba wuxuu isku diyaarinayaa inuu abaaro hooygii uga degnaa magaalada Muqdisho halkan waxa isku macsalaameyn doono indha aan kala daalin iyo qalbiyadii ismuuga oo halkaas ay isugu soo dhamaatay waqtigii iskuulka hanad hibo saabir iyo saabiriin sheekadoodii iyo kaftankii xiisaha badnaa ayuu ruux waliba ka dhigan doonaa wehel maadaama aan la is arkeenin ilaa birito dhigta in la iska maqlo mooyee halkan ayay ku egtahay aragti kana bilaaban doontaa ruux walba wuxuu la sheekaysan doonaa naftiisa iyo qalbigiisa daqiiqad kadib hibo waxay soo gaartay xaafadeedii oo waxay isku diyaarinaysaa waqti yar oo nasiina ah balse qalbigeeda ayaa weydiinaya dhowr su'aalood su'aalahaasi oo ah sida ay ugu sheegan lahayd jaceylkeeda saabir balse yaa u sheegay inuu ku soo wajahan yahay qalbi jaceyl waliba mayal adag oo isla markiiba waxa teelkeeda soo garaacay hanad waa ayna ka qabatay laakiin yaa u sheegay qaabka ay teelka ugu qabatay hanad iyo qaabka uu u duulaamayay in ay kala fog tahay hanad geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuulayaa inuu bedelo ra'yiga hibo oo ah ra'yi walaalnimo halka fikirka hanad uu ku duulaamayo uu yahay fikir ka duwan midka hibo oo hanad fikirkiisa waa mid jecel iyo nolol ku dheehan tahay hanad wuxuu raadinayaa kalsooni ka duwan midda uu hadda haysto hibo wuxuuna taagan yahay dhulkaba kama soo baxo cagaar haddaanan jugti lagu bixin qalbigana kalsooni kama imaado haddaan dareen lagu beerin wehelka nafteeduna waa adiga kaftan sheeko sarbeeb kadib hanad wuxuu ku dhahay hibo waxaan ku rajaynayaa caafimaad iyo cimri dheer waa inoo biri iyo iskuulka okay walaal laakiin su'aal aan ku weydiiyay saabir ma ku soo wacay hibo waxay ka soo haray indho iyo shib qalbigeeda wuxuu galay xasuus maxaa ku helay abay may aboowe waxaan ku saxday biyo okay cidna ima soo wicin saabir wala saabiriin okay waa inoo biri kulli taba way nabad qabaan la soco qaybta saddexaad ee sheekada oo xiise gooni ah leh si aad noola socoto fadlan noo saar subscribe-ka gambaleelkana furo